kulanti wacan oo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta ku xiran daawanaysa YouTube-ka isku filan official tube baan idin salaamaya dhammaantiin meel walba joogtaan iyo si walba muuqayga iyo maqalkaygaba uu idin soo gaaraya. maanta waxa aan halkani u fadhiyaa in aan ka hadlo arrin yar aad u gaaban. gudaha ismaamulkani wajeer maalmahan dambe waxa aad iyo aad loo arkayaa in siyaasadii ay in badan cirka isku sii shararayso oo waliba aad loo arkaya in siyaasiyiin badan ay hamigooda u soo bandhigeen reerihii ay ka dhasheen iyo waliba sidoo kale bulshooyinka ismaamulka wajeer shalay ilaa maanta waxa aan jeclahay in aan sidoo kale sidaas ay badan kaaga dabageeyo haddii aadan la socon haddii aad la socoto waa sidaasi in laba baraasab la soo kala qaaday mid shalay dhacday midna maanta dhacday oo walibana in badan hamigooda u jeediyey bulshooyinka hamigoodana u jeediyey reerihii in badan ay iyaga ka dhasheen waxa aad iyo aad la isu weydiinayaa doorashada 2022 oo aanan la gaarin doorashadaasina ay dhici doonto 8 bisha Agoosto sanadka soo socda haddii ay bahawood leh raali ka ahaado ayaa waxa la arkayaa in badan dhaqdhaqaaqeedii inuu aad u bilowday shalay waxa la soo qaaday baraasab walibana asagana hamigiisa tusiyay in uu diyaar u yahay in loolanka 2022 in uu galo reer ayuu ka dhashay reerkii ayuu tagay dhishagaya lagu soo qaaday kullay waad wada aragteen filiya dhagihiina waa ku dhacayaan filiya laakiin in badan sida muuqaalkani aad ku daawan doontaan ayaa waxa uu helay soo dhaweyn aad u baaxad leh oo waliba in badan aad iyo aad loo soo dhaweeyay halkaasi waa uu ka hadlay hamigiisa waxa uu u jeediyay bulshadii iyo waxyaabaha inta badan oo asaga ka qaban doona haddii ilaahay uu u suurageliyo xilkaasi in uu helo doorashada soo socota haddii bahawood leh raali ka ahaado ciddi hadday saas tahay oyba gaartay guulahaas badan oona laga garanayo Wajeer County waxay maanta ila noqotay inaan hore u doroqon oon maamulka wanaagsan oo cidda leedahay aan hore u durjina oon ani hortiina isa soo istaaga oon dhaha waxaan rabaa governor Wajeer County oo sanli u soo bax insha Allah waxaan rajaynayaa maanta anagoo muujinayna midnimada as to stand in as meeshan u soo qaadi doontiin waana soo qaadeen sidaan ogey waana mahadsantiin aniga waxaan leeyahay aragti on raba in walaalahay meeshan joogaan gabdhaha dhalinyarta abayaalka dhulka in wax ka qabta diyaar u ah ona aqoon u leh waxaan qaban rabana maanta waa ii muuqdaan ma ahin waxaan ogeen oo kursiga iska fuuli raba marka siyaasiyiintu waa iska caadi waa lagu yaqaanaa in badan marka aad fiiriso ballanqaadi aad u fara badan kullay kuwa oofiyo oo kuwa inta badan ilaahay ka cabsado walibana culays ka saaran oo walibana ballanqaadka ay qaadin fuliya aniga kullay halkani kama dhahi kara mana cadeyn kara in badan waxyaabaha ay u ballanqaado ma dhihi kari waa uu fulinaya ilaahay ayaa taa in badan og laakiin waxa aan jeclahay inaan culays ka saaray in badan xogogana soo food saaray walibana isa soo sharaxaya musharaxiinta kala duwan waliba la soo qaadaya in shalay ilaa maanta la kala arkayay dhanka baraasabka aad iyo aad loo arkayay maantana sidoo kale waxa sagana hamigiisa bulshada iyo reerihii uu ka dhashay u bandhigtay ugaas oo asagana doorashadii 2017 Maxamed Cabdi Maxamuud oo ambasadorka xilka uga faatax qaatay oo ka haray marka maanta asagana waxa uu tusiyay sida muuqaalkan aad ku arkaysaan in badan in hami uu leeyahay oo walibana diyaar u yahay in bulshooyintii uu faataxada ka qaatay doorashadeena soo dhaafnay haatan diyaar u yahay kursiga codsigoodan in badan siiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam maanta waa maalin farxad leh waxaan isoo imaadnay qoyskii ilaa tolkii reer Wajeer aan isu imaadnay
waana maalin oon ku tashanay inaan insha allahu tacaala arrintii gabananimadaydi inaan horey u wadno oo liisoo qaaday horaana liisoo qaaday laakiin maanta confirmation wax la yidhahda ay ahayd tolkii kalena waan u yeeranay inay nala witness gareeyaan ama ay markhaati ka noqdaan ayagana diyaaraan u nahay ayay dhaheen marka insha allahu tacaala waxaan filayaa inay maarata safartan ay dhaqaaqday oo insha allah horey ay u socon doonto ilaa waqtigii 2022 August 2022 tan labaad reer Wajeer waxaan u sheegayaa inaan diyaar u nahay madaxtinimada Wajeer inaan leenahay maxaan ku yiraahdaa wixii loo baahan yahay oo reer Wajeer ay u baahan yihiin inaan fahamsanahay oo manifestona aan soo bixin doono waa bahaynaa laakiin weli waqtigeeda lama gaarin insha Allah taala reer Wajeerna wax bay ku degi karaan inaan doono midnimo maxaan ku yiraahdaa inaan wax la qaybsan karo in Wajeer ay horumar gaari karto in dhaqaale la dooni karo kii national government iyo kii international community iyo meel walba in dhaqaale laga dooni karo in cadaalad wixii ayaga lagu qaybin karo ayaan u sheegaynaa insha Allah taala kulli adigu banaanka muuqaaladani ka daawanaya iyo waliba falanqeyntani aan xogta yar kaaga bixiyay waxa aad ka leedahay ma garanay laakiin bulshaweynta haddii aan u soo noqdo in badan ballanqaadyo ayaa loo sameeyaa ballanqaadyada loo sameeyo badana marka aad fiiriso waxay u eg tahay kuwa aan loo fulinin waayo had iyo goor markaan wada hadalno calaacalka bulshada ma aha mid dhamaada marka siyaasigii haddii adiga aad kalsooni ku qabin maxaad u soo qaadaysaa waa su'aal siyaasigii haddii adiga ballanta uu kuu qaaday doorashadeenu soo dhaafnay haatanna kugu soo noqday maxaad u soo qaadaysaa haddii uu kugu cusub yahay in badan ma hubtaa in ballanqaadyada uu haatan hortaada ka ballanqaaday fulinayo bulshaweynta waxaan ugu baaqayaa in arrimahan ay ka fiirsadaan aniga siyaasi miihi siyaasin in badan ma hoos socday suxufi ayaan ahay in badan arrimahan banaanka ayaan ka jiraa halkani waxaan u fadhiyo kaliya waxa weeye in aan falanqeeyo un laakiin adiga bulshada ka midka ah muuqaalkani daawanaya waxaan in badan kugu boorin lahaa in aad arrinkani ka fikirta degdega inta badan ma wanaagsana shakhsigaad ku kalsoon tahay soo xuluhaa laakiin in badan fudaydka waa laga roon yahay sidoo kale is-afgarasho ayaa inta badan wanaagsan yaa wax noo taraya yaa waxay noo qaban kara laakiin haddii qabyaalad iyo in badan musuq maasuq arrimihii aad ku soo qaado dhib ayay noqonaysaa marka taa ha laga fiirsado maantana inta ayaan jeclaystay inaan la wadaago haddii muuqaalkani uu kusoo gaaro fadlan la wadaag saaxiibka sida adiga oo kale u wanaagsan sifaan u helno saaxiiba sida adinka oo kale in badan u wanaagsan oo welibana halkani barteena isku filan official tube aan iskala jaan qaadno had iyo goor aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum